أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دواذا دردر ميديا جروب iyo barnaamij cusub talinta qoyska yaa la talinayaa qoysaska isqabo yaa dad la talinayo annaga yaa salaam waa barnaamij cajiib ah daawade waan filayaa in aad iyo aad u xiiseynaysid Faadima VIB iyo Xasan Toob in ay halkan idin soo fadhiistaan oo ay barnaamijkani idin la taliyaan waayahay barnaamijka la talinta qoyska waa barnaamij durdur media toddobaadkiiba mar aa ka daawan doontaan insha Allah haye Fatima dadaa soo dalbaday daawadayaasha soo codsaday in maxay la talinta qoyska ay isbuuciiba hal mar ama isbuuciiba laba mar aan halkan u soo fadhiisano ani xaajigeyga يا سلام ان عاوة برنامجك حتى كما دوين استوديو دحديسا ان استوديو بنانكيسان سو فديسناي ان فاطمه بل ugu horeen la talintii qoyskan bilaabeena haye dhankaaga ما ياد ما يقول بلاد سؤال والله ka jawaabi karaa okay kidib ani waa markaas ان koo waxaan ku horanayaa dumarka maxaa looga baahan yahay dumarka Soomaaliyeed ama zawjada ama marwada xaaska ee la qabo dumarka Soomaaliyeed mid la qabo waaya mid la qabin ma bal qabo Soomaa insha Allah waxaan rajeynayaa iyagana inay heli doonaan dumarka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay qoyskooda ama xaajigooda si wanaagsan ay ula dhaqmaan mararka qaar markay isku dhacaan oo kale ama iyada qaldami karto ama asaa qaldami karo waxaa loo baahan yahay mar walba marwada raaliyada ah oo Soomaaliyeed waxaa loogu baahan yahay haduu ninkii qaldan yahay iyo haduu iyada ka qaldan tahay dhaxdood mar walba inay xaajigeed ay maxayto hadal wanaagsan kula hadli karto haday careysan tahay hata mararka qaar waa la isku dhacaa waxyaabo fara badan la isku dhacaa waxaa loo baahan yahay qofkan cilada haday maxayto wax ka tabanaysid waxa ka tabanaysa cawasho ah markuu as imaado si degnaasho ina soo dhaweeysaa marka soo dhaweysid waxa laga baahan yahay dhibaato ku haysto ina u bandhigtid marka si tartiib ah adoona qaylineenin miya buuqna ku fureen tusaale ahaan haduu imaaday albaabku ku soo galay wariya waxa laga sheegay waxa maqlay waxa saas ina ka horgeysid maahan ما فهمت تصال عن تليفونكم كاقوان واي ميل قاونا إذن تصال تليفونكم كاقوان واي أسيقنا شقوكم مقايا هاي أنا قد دمر وانا هاي وانا سنقانا ومهدي تليفون كلا قوان واي واسيدي أسلين محالي هاي قوان واي ومركو إمادو صدقنا شاء وسودبين وجف الفرن سودبين هدو إله إدمو كسال لهذا حاج ومحاكا قلدن تليفونكم حيو قوان ويسي محاكاسي يا فربنا أرم فربنا إيمان كرتادي صح كدب مركز سيدا لو حلنا مركز عواشدا هذا هدا ديبتيد وأسين وحلو كدي كراسوما حمان السمان وحابك لك ولنتيد هدي حمان كلك ولنتيدنا إلى أمريكيس أسكجري هذه إن أسخوج سدا في عمر والبو هبيني إذا إني مسكحيت كشخيسيسو صدقناشو ونحريس كلها مرة دي قف كان هذه أري نحريس كل هذا شيء حاب لقى يا بينه وسوق أبو سما أو علوش سكوتشر أو كوساب بندقته حسن طاب وسوي سنة مركان هيه أنا من كيا هراي هيه أونين ها هذا يسوي جد هذا عريس أنت هاي محات شيء اللي هذا مسا هذا ما سنتهاي فهذا VIP waxaa aad u madcelinaya daawadayaashii ka soo codsaday barnaamijkan in aan wada qabanno oo la talinta qoyska daawadayaal waxaa la rabaa fariimo inaan noogu reebtaan qaybaha commentiga fadlan waxa aad adiga iyo saygaaga isku haysataan noo soo qor adiga iyo xaaskaaga waxaad isku haysataan noo soo qor si aan anagan uga faaloono xitaa haddii magaca diidaysa xitaa magacaaga lama sheegayo magacaaga lama sheegayo magacaaga koo waxaa leedahay magacayga saddexan waa hebel waxaan ku suganaa meel hebel ama waxaa kala kulmay problem hebel marka la talinta qoyska la dhahaa qofka qoyska raba inuu guursado xataa oo guurdoonka ah inuu qoys samaysto uu rabo waa la talinaynaa waxaad siinaynaa talo wanaagsan wadadii uu raacayo fadlan commentiga noogu reeb si toddobaadka dambe barnaamijka soo bixi doono
kommentiyadaas loo akhriyo fadlan hadda ha iloobin kommentiyadaas soo qor kommentigaas soo qor magacaaga saddexan iyo waxaa rabta in lagala taliyo waa Faadimo VAB iyo Xasan Toob xaaji iyo xaajiyeed waayahay say iyo saygeeda miya say iyo marwadiis miya astaghfirullah say maxaa saygeed waa dhiirid say saygeed asasan dhiiro astaghfirullah taabal cali والله سيء marwadiisa اوكي سيء marwadiisa dhinaca dumarka waa ka hadashay su'aalaha ay ka laaban waa ka hadli doonaa ku weydiin doonaa laakiin ragga haddii lacala shaqo ay ku jiraan ama telefoon ay qawaayeen waxaa laga rabaa inuu qofkii isla markii uu telefoonada wacayo kow ka dhigo marwada haddii uu telefoon kale uu ku jiro oo shaqo culus qof uu kala hadlaayo ama booskiisa uu la hadlaayo ama madax uu la hadlaayo ha soo dhammaysto waqtigii ay ku qaadato ilaahu 30 daqiiqo 40 daqiiqo ku qaadato markuu shaqada soo dhameeyo isla markuu khadka saas u soo dhameeyo in uu maxaa la dhahaa on holiday uu dhaho oo uu celi haddii ciyaal xaafadeed dad aan cover lahayn ama shaqo culus wax aan kala dhaxaynin oo iska waran ma fiican tahay maxaa haysaan walaahi bilaahi okay walaahi wax dhib lama jiro walaahi waran ba jawiga ka waran haddii arrin noocaas amal aad tahay isla markii marwada ku soo wacdo waa gaayga soo qad ku jiro waxaa leedahay waraa qof muhiima soo celiyo kuu soo celinaa aa leedahay marka ama xaaska soo celisaa leedahay waxaa samaynaysaa telefoonka ku daminay ama shimbira ku furay waa qabsanay kadib waa qancinay okay taasa uga baxay telefoonka markaa qaban weysid oo telefoonka qofka qaban waayo kow shaqada ugu horeysa uu qabahay inuu ka dhigo marwada sababtoo ah guriga information is a power familka laga soo wacaa waa meesha aad ku hooyi lahayd dee xaaladda guriga sida wax yihiin caruurta iyo wixii isa uga wareysato ayaa hadafku u yahay waa weydiinay waxaa leedahay warsida wax u jiraan hay ilmihiisa yihiin caruurta xaalkooda ka waran hay maxaa cusub dhag kadib information la weydiina haddii ay iyada ku dhahdo kale warniyo waa wax dhib lama jiro alxamdulillah iska salaamay leh xaaladaada la ku weydiilay maanta dhan maxaa ii soo baxay maxaa telefoon ii soo baxay aan shaqo ku jira ma dhaysid sababtoo ah xaaska waaye way ka fikiraysaa adna waa ka fikiraysaa marka daawade waxaa mar walba aad iyo aad u wanaagsan in dhinaca samaha in laga fakaro xumaanta inaan laga fakarin ayaa muhiimsan marka ragga waxaan leeyahay qof kasta oo guursaday oo kale in xaaska in marka wax u baahato oo kale lacag ama wax kasto ama dalxiis ama in meel la geeyo u baahato tartiib murmur yaa laga gelin haddaa awoodid geey haddii lacag haysid sii ma fahant lacag mis celiso maanta gacantaada ma ku jirayso weligaa gacantaada ma ku jirayso way ka baxaysaa maadaama gacantaada ay ka baxayso oo aan waxa maxaa la oo markasta gacantaa ku jirin uu yahay waxaa lagaaga baahan yahay in aad lacagtii aad siiso dadka qaar si kale u fakaraan marka si khaldan yahay loo fikiro dhinacii dumarka iyo su'aalo adag Faadimo VAB waxaa ku weydiinayaa dumarku waxaa leeyahay damac ka tir waayo kale ayaa leeyahay oo maanta oo dhan lacag soo tuur maana maanta dhan isii kan iigad ilaa ninkii laga gaarsiiyey heer uu faqiir uu ka noqdo la gaarsiiyo oo si arxan dare ah loo feenanayo marka arrintaas maxaa kaga jawaabay damac ka tir yani arxan dare miya lacagtiyaa soo dir maanta dhan lacag hebelkeen kan mana waxaan loo baahnay tusaale ahaan haddii wax oo daruuri ah loo baahan yahay camal problem ah waxaan loo baahnayna qofkaan la weydiinaa oo micnaha tusaale ahaan wax oo iyada codsatay oo kale waxaas baahan ahayn wax iska wax oo aan meeshaba ku jirinba oo qofkiina lacag iyadoo heenin iyada og ee lacag maanta kan keen haddii uu $100 hayay oo biilka ka dhigis dhahay bardhay $2 si ama $3 si isdhahay markii ay keen dhahay berina wax dabka lagu shubo malahay bal tiimkaas maxaa leedahay dumarka Soomaaliyeed aad u weyn waaye waxa si heenin in la dhaho keen waa dhibaato aad u culus haddaad ogtahay jaabkiisa ma ahan maskiinka inaa maxay ahayd tole aa hagaraysid oo si xaasidnimo ula dhaqantid kolley waa ninkaaga maalkiisu waa maalkaaga haddaad ilaalisid adaa iskale haddaad ku ciyaartidna kolleyba waa maalkaaga ku ciyaarto sooma marka waxaa la talinaa gabdhaha saas oo kale u dhaqmaayo oo hagareynaya leeyihiin ninkan ma badhaafayo wuxuu haay waa maluufinaa xaasinimo si fiican wax u waayo
mararka qaarna xaasidnimo ma jiri karto maxaa yeele waxaa laga yaabaa haweeneydan inay u baahan tahay waxyaabay u baahan tahay jiro oo yaryarooti iska ah. marka dumarku waxaa leedahay marka waxaan leeyahay xaasidnimada ah maxay ahayd oo xaajiga ula dhaqmaysid iska daa wanaag kula dhaqan mar walba aad qofka wanaagsanaada ahaaw haddii si qaldan lagula dhaqma hataa ilaa waxaan waa maxay ahayd bini aadame si xun haddoo kula dhaqma hataa maskaxdaada ka shaqaysii keligaa meel fadhiiso isxisaabi. dumar waxaa jiro isla markii lasoo boodaayo ifur macnaha qofkan waa soo daahay ifur war ninkan maxaa furow qofkan meelas aaday shaqo ku jiray alisay ifur maya horta iska daaya dumarka Soomaalida la hadlaa waxaan leeyahay haddaa adii saygaaga isku dhacdiin mar walba meeshaan furiina soo gelinin biliis waa idinka codsanaa gabar walaashiina ahay ragga ifur markaad tiraahdaa waxaa laga yaabaa dalaaqad inay si wax ku gaarto waayahay marka waxaan leeyahay ragga xaaskiina sharfa qof la sharfo bani aadan waxaa ugu muhiimsan gurigaaga reerkaaga inaad sharafto waalidiintaada ka sokow inaad reerkaaga sharafto in wax walba u hurto dhaqaalo wax walba inaad hurtid caruurtaada xaaskaaga hadduu haayo haddaa haysid haka xasdin aqarsanin haddaa jaabku tulub xasisanin jaabku juluq xasisanin daawadayaal kaamirada waxaa inoo hayay weriye Liibaan Shoorley tan iyo kulanta dambe toddobaadka xiga insha Allah ayaa noo balan ah fariin ku soo reeb commentiga oo aad doonayso in lagula taliyo fadlan talada waa ku siin doonaa talo qurux badan ku bilow magacaaga oo saddexan meesha aad joogto iyo qoys iyo ruuxa tahay haddaa guursi rabtid xitaa qofka aragto noocee inaad guurstaa nala soo tali aan dhahay noo soo gudbi talada noo soo gudbi kadib anaga halkan soo fadhiiso tani kula dambe sidaas iyo nabadgelyo.